ma la socotaa sahanka nolosha haddii aad seegtay qaybtii ugu dambaysay halkan waxaan kuugu soo koobnay wixii dhacay si aad ula socoto dhacdooyinka ugu xiisaha badan waa sahanka nolosha qaybtii 9aad xalqada 4aad bulshadu waxay si weyn uga falcelisay xarigga mooge sheekh rooble ayaa caddaynaya dembiyada loo haysta mooge wuxuuna u magacaabayaa hibe inay noqoto guddoomiye ku meel gaar ah arrintaasoo dhalisay aragtiyo kala duwan waxaan idin caddaynayaa oo aan idin xaqiijinayaa in mooge si rasmi ah loo xihay lana geenayo magaalada muqdisho si halkaasi loogu maxkamadeeyo waxaan idiin sheegayaa in sida sharciga ah in maadaama mooge xilkii laga qaaday ay tahay in xilka lagu wareejiyo musharaxa xiga ee codadka ugu badan haysta xilkana loo dhiibo si ku meel gaar ah muddo 3 bilood ah tani waxaan u arkaa in geedi socodka doorashada la musuqmaasuqay oo ay qalad tahay sida wax loo wado suuragalna maaha hibo maadaama aad tahay musharaxa ku xiga mooge diyaar ma u tahay inaad xilkan qabato haddeer haa diyaar ayaan u ahay xilkaas inaan si ku meel gaar ah u qabto haddeer sheekh rooble waan aqbalay aamine iyo samsam oo ah laba walaalo ah ayaa mar kale ishelay iyagoo fadhiya maqaaxi aamine waxay kula talisay samsam inay u tartanto hoggaaminta ciidanka xeebaha samsam way xiisaynaysaa hase yeeshee weli way ka labalabaynaysaa waxaan tababar la qaadanaya ciidamo caalami ah waan gartay bal iga waranba jawiga meeshaas wallaahi jawi deggan aan caadi ahayn magaalada muqdisho lagama sheekayn karo waa soo dalbaratay runtii fursad fiican waa ay ku ahayd sidoo kale baayo waxaan kugula talinayaa inaad u tartantid xilka ciidanka ilaalada xeebaha maadaama hibo meesha ay ka baxday waa gartay walaashay dirir oo hore uga tirsanaa burcadbadeedda ayaa ku qancinaya xaawakiin inuu noloshiisa dib u hagaajiyey waxay isla falanqaynayaan caqabadaha kalluumaystada haysta oo ay sabab u yihiin maraakiibta qalaad ee xeebaha ku sugan dirirow waxaan ka walacsanahay xaaladda magaalada iyo waxa ka socdo walaaca muxuu yahay ku haysta xaawakiin waxaan ka walacsanahay oo aan ka baqayaa in burcadbadeedda la ugaarsanaayo ee ku saamayso dirirow anoo huba inaad wax lug ah ku lahayn waa middaas walacayga ugu weyn waxaasaa ka welwelin xaawakiin niyadda khayr u sheeg wax dhiba ma dhici doonaan haye bal ka waran kalluumaysigii beryahan ganacsigii wuu adkaada xaawakiin ee sidaa la socotaba xaaladda ganacsiga ee kalluumaysigiina waa mid aad u sii hooseeya amayaamahanba waan gartay haye waxaa dhibaato nagu haya annagoo ah doomihii yaryara ee kalluumaysatada ahaa maraakiib waaweyn oo badda ku soo xadgudbaya oo kalluumkii xitaa weliba si tuugnimo ah ku jillaabaysanaya oo aan la ogayn dhibaatana nagu haya cabashadiina maxaad u soo gudbin weedeen si wax looga qabto maraakiibtaasi waan soo gudbinnay welibana wax lagama qaban gudaha xarunta ilaalada xeebaha ayaa lagu falanqaynayaa soo noqoshada samsam inkastoo taliya xasan uu shaki ka muujinayo doorkeeda haddana kormeeraha axmed wuxuu ku adkaysanayaa in samsam ay sii joogto oo ay qayb ka noqoto howlgallada adigoo raalliya taliya axmed waxaan ku weydiinayaa qorshaha samsam waad mahadsan tahay taliya tawakal samsam waxaan doonayaa in ay muddo kooban sii joogto magaalada daaqsan si ay ula shaqayso oo ay u caawiso ciidanka ilaalada xeebaha ee daaqsan haye xasan maxaad ka qabtaa arrintaasi taliyaha uu ka dhawaajiyey taliye waad mahadsan tahay aniga runtii waan oggolahay haddii zamzam ay qaadanayso amaradayda wax dhib ah oo aan ku qabo ma laha laakiin waxaa qasab ah inay itixgeliso oo amaradayda ay qaadato kabtan xasanow aniga khalad ha ii fahmin ujeeddadeedu waxa ay tahay horumarinta tababarada iyo howlgallada ciidanka ilaalada xeebaha inaan xoojiyo oo keliya ujeeddo kale ma lihi ee qalad ha ii fahmin war maxay ku hadlaysaa gabadhan miila aragtaan war waxay sheegayso ma aragtaan waa isaga soo laabanaynaa sheekadan shirkana halkaasu noogu egyahay marka dib baan isaga soo laaban doonaa dib baan uga wada hadli doonaa wixii dheeriya ha moogaanin qaybaha xiisaha le ee xiga ee sahanka nolosha waxaad ka dhegaysan kartaa jimco kasta 2 iyo barka galabnimo idaacadaha raadiyow dalsan 91.5 FM SBC raadiyow 89.9 FM raadiyow kismaayo 90.0 FM ama codka gobollada dhexe 89.9 FM waxaa kale oo aad halqadaha ka dhegaysan kartaa boggeenna facebooka la soco sahanka nolosha si aad ula socoto dhacdooyinka ugu dambeeya